saddex sano oo xariga waa meesha ugu dambaysa ciqaabta ugu dambaysa ee qodobkaas farqadiisa labaad lagu maxaa la yiraahdaa ay tilmaamayso waay arrintaas waxay muu noqotay arrin lama filaan ah in ciqaabta ugu dambaysa ay maxkamadda isticmaasho waxay noo muuqatay eedda iska rogadii aan samaynay caddeemihii aan gudbinay iyo doodihii iska difaacii inayna maxkamaddu ay qiimaynin qaadatay keliya doodii ay qaranka soo jeediyeen oo annaguna u arkaynay in lagu dhawaaqo garmaqalkii sanadda ay ka ahayd Sacdiya Macalin Cali saaki waa lagu dhawaaqay Sacdiya sidaad hore ula socoteen laba qodob ay ku eedeysadeen qodob 320 oo ah maxaa la yiraahdaa kuurin gelis faldambiyeed iyo 269 farqadiisa labaad marka maxkamaddu waxay sheegtay in qodobka 320 Sacdiya gabi ahaan lagu waayay oo ah arrintii ahayd kuurin gelis faldambiyeed annagana markii horena waa sheegnay arrintaas inay meesha ay iilin jirin eedda iyo qodobka 320 xukunka maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo uskanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka 84 faqradiisa koobaad xarafkiisa A ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 107 faqradiisa saddexaad ee dastuurka ku meel gaarka waxay eedeysanay Sacdiyo eedda xafiiska xalaaliha guud ee qaranka ugu soo eedeeyay waa eedda ku xusan qodobka 269 faqradiisa labaad taas oo ah inaad ihaano mas'uul hadii aad u geysatay hay'adaha dawladda sida gobolka Banaadir asluubta booliska faldambiyeedkaas lagu soo eedeeyay ee ku xusan qodobkaas ma gashay mise ma gelin mise doo sharciyeed ka qabtaa ma gelin Sacdiya marka dambiga way gashay dadaa laakiin la sii buunbuuniyaa warheede ma ogtiin in 3 sano oo xabsi ah la igu xukumay waxa la igu haystaa maxaa wax ugu sheegtay baaba xasan iyo muunka gaaban taasi ma cadaalad ba Sacdiya Bajaaj ugu dambeyn 3 sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku xukuntay 3 sano inay soo liqi doonto inkastoo ay qareenadeedu sheegeen inay ku qanacsaneen xukunkaasi degdeg ku dhacay sidoo kalena aan laga fiirsanin ayna racfaan ka qaadan doonaan una raadin doonaan Sacdiya cadaalad bajaajleyda ayaa dhinacooda cadaalad darro tarshirtay oo ah in dawladda fila Soomaaliya ay ka aarsanayso gabadhaasi yar ee miskiinka ay cunuga yar haysato ay ka aargoosatay lana dagaalantay madax iyo mas'uuliyiin si kasta oo ay sharci ku heli lahaayeen oo xabsi ugu dhigi lahaayeen ay Sacdiya ka shaqeeyeen sidoo kale waxa hadlay qareenadeeda oo sheegay in ay Sacdiya dawladda ka dhinaca kale xabsigii ugu dambeeyay ama ciqaabtii ugu dambeeyay ay marsiisay oo 3 sano hadii ka badan ay ku jiri lahayd xukunkaasi oo 10 sano la gaarsiin lahaa balse aysan ku oolin oo ay 3 sano meeshii ugu dambeysay ka soo qabteen si kastaba ha Sacdiya Bajaaj ayaa xabsiga loo dhaadhiciyay inagoo haatan ka nimaanin maxkamadda gobolka Banaadir oo xukunkaasi uu ka dhacay وما سنتي صاحب يال مقال كنت سوكو اجيحي حدي اد كهشي channelka subscribe iyo like dheh مقال كنت soo gabagabeynayna da muuqaalka oo ku qanacday oo wax ka fahantay muuqaalka intaas ku soo gabagabeynayna
لايك نو صار مقالك لايك تحبون بينو فايدينيسا فرحدين وسبسكرايب iyo لايك تويي aad baan ugu mahadsantiin walaal oo mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته.